بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم مدحديسين وزيرك وزارة الدين يا وقافة جمهورية الصوماليلان محمد حاجي آدن علمي أيها مانتها كلا لقاطي ضلد البري أو الدمر كشقية في دين الدعوة الدين الإسلامك. وزير كحجينك وزارة عدالة إي وفتي وهجامني أيها كقيب قليها الشر لجهلي دنبيضها بدها كدعاء sarkaal waddankaasi Mareykanka oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in markab uu ka babanayay calanka Norway lagu weeraray gantaal ay soo rideen kooxaha Xuutiyiinta ee waddankaasi Yemen waxaanu intaasi ku daray in weerarkaasi uu ka dhacay meel u dhow Bab al-Mandab kaasi oo sababay burbur soo gaaray markabkaasi. Joseph Borrell oo sarkaalka siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegaya in baaxadda burburka marinka Gaza uu ka badan yahay wixii magaalooyinka dalka Jarmalka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka waxaanu intaasi ku daray in 85% dadka Gaza ku nool ay yihiin barakacayaal taasi oo u dhiganta 1.9 milyan oo qof. intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkayaga haatan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo fidsan. وزيرك وزارة الدين يا وقافة جمهورية الصوماليلان مدن محمد حاجي آدن علمي أيام أنتها كل النقاطي ضلد البري أو دمر كشقية في دين الدعوة الدين الإسلامك. وزيرك وزارة الدين يا وقافة جمهورية الصوماليلان وأيوهلين أقاسمها جود أقاسم ياشا واحدة هرمانتها تعليم تايو قدوميها جمعية هوستي مادة البري iyo mas'uuliyiin kale oo kulankaasi ka qayb galay waxa kulankoodaasi uu daaranaa mid isxog waraysiya iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo dalladda albari. wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo kulankaasi si rasmi ah u furay ayaa bogaadiyay xubnahaasi ka socday dalladda albari dadaalkooda iyo firfircoonidooda iyo sida wacan ay bulshada ugu wacyigeliyaan ku dhaqanka diinta suuban ee islaamka iyo sida ay u fidiyaanba. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi waxa uu xusay in dalku yeelan karo hay'ado miskiin kalkaalaha kana hawlgashaha gobolada iyo degmooyinka dalka oo xidhiidh la leh hay'adaha caalamiga arrintaasi oo wasiirku sheegay in fursado shaqo abuurna bulshada looga heli karo. dhankiisana agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Cabdilaahi Cabdulle ayaa mas'uuliyiinta dalladdaasi albari u ballan qaaday in hawshaha bulshada ay u hayaan ay ku garab taagan yihiin ka wasaarad ahaan. geesaha kalena kulankaasi waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay agaasimayaasha waaxyaha horumarinta tacliinta iyo dacwadda ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdixakiin Maxamed Muuse, madaxa dacwadda haweenka Deeqa Maxamed Cali iyo madaxa manaahijta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland waxaana si wada jira uga warameen sida wacyigelinta diinteena suuban ee islaamka ay ugu wacyigeliyaan bulshada. gabagabadiina mas'uuliyiinta dalladda albari oo ka shaqeeya wacyigelinta iyo horumarinta bulshada ayaa uga mahad celiyay mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland wada shaqaynta ka dhaxaysa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay shir lagaga hadlayay dembiyada badaha ka dhaca. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mahdi Cismaan Buuri iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay shir lagaga hadlayay dembiyada ka dhaca badaha. shirkani oo ay soo qaban qaabiyeen EU-da iyo UNODC
waxa uu ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaana lagaga hadlayay sida loo maxkamadeeyo ama loo baaro dambiyada ka dhaca badaha sida kalluumaysiga sharci darrada ah iyo arrimaha kale ee inta badan ka dhaca badaha sida ka ganacsiga tahriibinta dadka hubka sharci darrada ah iyo mukhaadaraadka shirkan oo ay ka qayb galeen wufuud ka kala socotay dalal ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia, Yemen iyo Somaliland ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Somaliland u furay waxaanu tababar muddo 7 socday uu u furay xeer ilaaliyayaasha iyo ilaalada xeebaha ee dalalkaasi Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland ayuu warkaasi idinka socdaa sarkaal Maraykan ah oo la hadlayay warbaahinta caalamka waxa uu sheegay in markab uu ka babanayay calanka dalka Norway lagu weeraray gantaal ay soo rideen kooxaha Xuutiyiinta ee waddankaasi Yemen waxaanu intaasi ku daray in weerarkaasi uu ka dhacay meel u dhow Bab al-Mandab kaasi oo sababay burbur soo gaaray markabkaasi mas'uulkan ayaa hadal u siiyay warbaahinta Al Jazeera waxa uu ku sheegay in burburyaha markabka ee Mason uu ka jawaabay baaqa murugada leh ee ka soo yeedhay markabkaasi la beegsaday waxaanu xaqiijiyay in aanu jirin markab dagaal oo Maraykanka laga leeyahay oo ku sugnaa inta uu socday weerarkaasi gantaalaha ee Xuutiyiinta dhinaca kalena waxaa howlaha ganacsiga badaha ee dalkaasi Britain ay sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan dab qabsaday markab meel u dhow marinka Bab al-Mandab ee u dhow xeebaha waddankaasi Yemen waxaanay kula taliyeen in maraakiibtu ay ka taxadiraan geesaha kalena xaddii markab Faransiis ayaa badda cas ku soo riday 2 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo ka soo ambabaxay sida wararku tibaaxayaan xeebaha waddanka Yemen Joseph Borrell oo ah sarkaalka siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegaya in baaxadda burburka marinka Gaza uu ka badan yahay wixii magaalooyinka dalkaasi Jarmalka soo gaadhay dagaalkii labaad ee adduunka waxaanu intaasi ku daray 85% dadka Gaza ku nool inay yihiin barakacayaal taasi oo u dhiganta 1.9 milyan oo qof Borrell waxa uu intaasi ku daray hadallo uu siiyay warfidiyeenka oo lagu soo gabagabeeyay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee waddanka ee Yurub ee Brussels in jawaabta militariga Israa'iil ee weerarada ay ku qaadeen dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee Xamaas 7 Oktoobar uu sababay khasaare aan la rumaysan karin oo dhinaca raayidka waxa uu sharaxay in wasiirada Yurub ay ka wada hadleen xaaladda naxdinta leh ee masiibada ee dadka raayidka ah ee Gaza isagoo xusay in khasaaraha raayidka ee u dhaxeeya inay u dhaxeeyaan 60% ilaa 70% wadarta dhimashada iyo tirada dadka ku hoos jira burburkaasi aan la garanayn warki وإذن كلا سعودتين راديو هرقيسة عودك جمهورية الصومال خيارة قيمها بدن هودا نقدر نقيسن وانا قنتاسي عادي هذا يدقون هاتسنتين قدرك وقت قيمة قارقة نسيسان يسيدا وعن هذا سعودتان قيمها كلا دوان باهين تيدا الظهور نمو إن شاء الله دقيستيال إلا أفرتاي قيبتا أفك الصومالي قينو تحنان دونتا يدو هالكاسي كسي عن بقاد مدوران قيبها كلا دوان كوب حيا أففك عربي إنجليسيغا إيو أمهاريغا وقودهانبا soo gabagabayn doona idaacadda radio hargeysa saacadda afrikada bari marka ay tahay 5 galabnimo
inta ka horeysa waxa aynu dhex mushaaxi doonaa hadba dhinacna ka eegi doonaa qaybaha kala duwan ee barnaamijyada kala duwan ee qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda Radio Hargeysa 28ka bisha Jimaadul Awwal ee 1445 Hijriyada oo waafaqsan 12ka bisha 12aad ee sanadka sii galbanaya ee 2023 maalin Salaasaa ay dhageystayaal hawada ka wada soconaa barkhad cabdi xarigle ayaa farsamada noogu sugan Aasiya Jaamaciise ayaa xidhiidhinta noo wada wararka waaniga Maxamed Muuse Banjiira dhinaca laliska waa injineer Cabdiqani oo cali cilmi gaabane isku xidhka internetka waa Khalid iyo Khadar sidoo kalena diyaarinta wararka dalka iyo dibadda dhinaca Soomaa waa Cabdiwali Saxardiid barbaartii idaacadda Radio Hargeysa ayaa meel kastoo aad joogtaan iyo hawl kastoo haysaan baydile wacan oo wanaagsan